waxaa dhacday sheeko aad u qosol badan. cunug yar oo ilmaadeeranahay oo laga keenay qurbaha dibadda laga keenay, waxaa laga keenay gaar ahaan Canada. weligiis Africa muu arkin, asagoo yara ugu dambeysay Africa. marka ninkii waxaa loo keenay Africa lagu soo celiyay, waxaa loo keenay familkii lagu soo celiyay inuu arka macnaha maaragtay wadankii iyo dadkiisi iyo qaraabadiisi uu soo barto. marka miyiga lagu soo celiyay sida u taqaaniin baadiyo. markuu imaaday ninkii dhowr bari markuu joogay subaxyaa ka mid ayaa waxaa dhacday marka abuelow subaxdaas markuu soo baxay uu aqal hoorigi ka soo baxay ayuu saa u eegay. soo ma arki karo wananka markay ma aragtay uu roobka doo oo ma aragtay xilligii ay ma aragtay inay saaxiibkiisu wuxuu ii arkay markuu banaanka soo istaagay. maamada ayadiisu gudaha ku jirto, dadkii oo dhan gudaha ku jira. markuu banaanka saa u soo istaagay soo ma ii arki karo lax yaro cunug dhashay oo macnaha cunugii sidii laga candhasaabay go' yar lagu xiray oo meeshii naasaha looga xiray. marka saas markuu indhaha ugu dhuftay uu yiri ayay hee maxaa dhacay? ayayo go-aagii waa la qaatay oo go-aygii yaa qaatay. laxda sii sidato oo candhadii ku xiratay buu yiri. oo laxdana waxaa laga xiray inuu cunugeeyo macnaha jaqin ilaa waa barwaaqo soorno roob baa da'ay. laxdan cunugeedu iskala socdaa inuu jaqin baa looga xiray. ninkaana Canada ka imaado waxaas weligiis buu arkay, waxa ka dhacsanba gu'i ayaydiis inay sii sidato laxdan.